asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda s c radio codka shacabka meel walbo aad naga dhegaysanaysaan dhegeystayaal waxaa weeye waraysi aad u xiiso badan oo aanu la yeelanay madaxweynaha maamulka qaatumo cabdinuur cilmi qaaje biindhe oo isagu ku sugan magaalada boocame ayaan qadka telefoonka kula xiriirnay waxaa dhowaan soo baxday wareegto ka soo baxday qurbaha ama dibadda oo ku saxiixnayd afahayeenka maamul goboleedka qaatumo salemaan wajaxaad taasoo sheegaysay in xilkii laga qaaday labada madaxweyne ee Karash iyo Biinde. haddaba waxaanu qadka telefoonka kula xiriirnay bal Biinde inuu arrimahan wax kala socdo waxa uuna ku jawaabay sida tan. arrintaa waa kaaga jawaabayaa wariye waana mahadsan tahay inaanay waxba ka jirin arrintaasu weeye oo aan wax ka soconaya iyo wax ka jira ama sharciyad ha noqoto ama dad iska hadlay ha noqoto arrintaa waxba kama jiraan. khaatumo waxaa laga xukumaa gudaha oo ay joogaan madaxweyneyaashii iyo maamulkii iyo isimadii. G11 ma xukunto. G11 markii waktigii uu dhammaaday hore oo la qabtay July 13 ayay ku ekaayeen, waa dhaceen, salaaxiyad ma laha. shirkii khaatumo lagu dhisay oo lagu doortay madaxweyneyaasha iyo kaabinetka oo isimadu ay xaadirka ahaayeen oo waxgaradku ay joogeen oo 3,000 oo qof ka badnaa. G11 waxaa ka joogay 3 nin. kaasoo kale marka la qabto oo shir dhulbaanta oo congress la qabto oo xilka ninkii markaa dhulbaanta isla garto loo dhiibo ayay arrintaasi ku ansixi kartaa. iyagu shaqo kuma laha, salaaxiyad uma leh, dibadda lagama xukumo khaatumo. isimadu shaqa kuma ay lahayn, intooda badan lama ogeysiin. been abuur baa lagu sameeyey laleeyahay isimadii waxaanu ka haysanaa kalsooni, waanuna la hadalay, waa ka daba tagnay arrintaa waxba kama jiraan. iyaguna waa caddeeyeen, iyada oo qoraalana way soo saarayaan sida ay naga ballan qaadeen intooda badani. marka arrintaa waxba kama jiraan. sidaa in dadku ula socdo weeye. waxaa la doonayaa in dhulbahante dibadda jooga iyo gudahaba ay isugu yimaadaan congress, shirkaana aanu hogaamino oo gaadhsiino meesha dhulbahanta doonayo inuu isugu yimaado. dabadeedna halkaa inta lagu gorfeeyo maamulkii ciddii loo dhiibi lahaa oo aniga oo madaxweynihii khaatumaa aan ku wareejin lahaa ayay arrintaasi ku ansixi kartaa. sida kale waxba kama jiraan arrintaa. waxaan jeclahay bal inta aanan u gudbin arrintan waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo xiriir caynkeeya ayaad leedihiin adiga iyo guddiga fulinta ama loo yaqaana G11? aniga iyo G11 wax xiriira oo aanu leenahay ma jirto. sababta aanan u lahayna waxa weeye iyaga maamulkii daciifiyey oo joojiyey oo gacan dhaaf ku sameeyey. annagu xiriir ma lihin. arrintaa markaan ogaadayna dee xiriir naga dhaxayn karaa ma jiro. waana dee niman shacabka ka mid a haddeerto ilaa congaresska la isugu yimaado oo wax rasmiya la doorto. madaxweynihii meertada lahaa keligay uunbaa sharciya. ilaa aan wareejiyo meeshii dhulbahanta u garto inaan ku wareejiyo xilkaa salaaxiyad anaa u leh, iyagu ma laha. nimanka la yidhaahdo isimadana wada hadal ahaan aad wada hadashaan dadka qaarkood waxay yidhaahdaan madaxweyne Biinde wax xiriira ma ay lahaa iyo G11. intii aad taleex ka timid oo aad soo gaartay deegaanka Boocame, qof ka mid ah guddiga fulinta ama G11 oo aad wada hadasheen ama aad wada hadashaan ma jirtaa? haba ka yaabin, may wax xiriira oo aanu leenahay ma jirto. maalintii aan taleex ka degay oo tegey aniga oo diyaara in aan dalkana xoreeyo, maamulkana kor u qaado, dhulbahantana meeluu ku soo hirto iyo maamul rasmiya uu yeesho, ayay nimankaasu dagaalka bilaabeen. waxay ka bilaabeen dhaqaalihii inay joojiyaan. waxay ka bilaabeen ciidankii rasmiga ahaa oo joogay oo weliba furimaha ku jiray in laga soo saaro dhaqaale darro awgeed, oo ay baabi'iyaan oo ay u bedelaan ciidamo beeleed ay u bedelaan.
intaa markii ay dhacday oo sida aan u ogaaday oo ummadoo dhamme ay arkayso markhaanti ka tahay intii ka dambaysay meel baanu kala marnay xidhiidhna ma lihin ilamana soo hadlin mar keliyana wax ima ay weydiin waxay la hadlaan wasiiro axmed wasiiray la hadlaan ama taleex jooga ama buuhoodle jooga iyo qolooyin kale oo iyaguna saaxdheer jooga dadkaasay la hadlaan waa adeegsadaan waa wasiir ku-xigeenno waa wasiiro annagu xidhiirkaa ma lihin waxna isma weydiino dee waxaana u arkaa niman shacab oo dadka la mid ah ilaa iyo congress dhulbaanta la qabtana dhacay oo waktigoodii dhammaaday sidoo kale waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo warqadan wareegtada ah waxaa ku saxiixan hal magac oo ah afhayeenka maamulka qaatumo Salebaan Wajaxaad wax xiriir ma leedihiin goorma ay soo kiindambeysay maay Salebaan Wajaxaad wax xiriir ma lihin sidii qaatumo congresskeedii loo qabtay 2 sanadood ka hor oo uu u tagayna mar baanu wada hadalay oo keliya intaan boocama joogay dib dambena uma aanan wada hadlin xidhiidhna ma lihin afhayeennimadiisana anigu ma ogi malaha qole u yahay gaara annagu afhayeen maamulka halka ka dhisan ee khaatumo ee aan madaxweynaha u ahay afhayeenku wuxuu ahaa cumar jaamac Saleebaan ayuu ahaa waa iska casilay cid kale uma aanan dooran dekreetaatina ma noqon karo sababtu waxa weeye waxaa sharciyan wax u magacaabi karaa ama dekreeto samayn karaa waa aniga cid kale ma aha waa aniga oo keliya aniguna xilkaa la ii dhiibay oo intaa habsaamay aan kaaga soo sheekeeyey sida loola dagaalamay ayaan u ahay madaxweyne waxaana la sugayaa waxa weeye inta dhulbaanta isugu imanayo oo cid u dhiibanayo ninku doonaba ha noqdee marka Salebaan Wajaxaad anagu xidhiidh ma lihinaano arrintan imaashiyaha maashirka oo aad dhowr mar ku celcelisay waxaan ognahay madaxweyne Karaash oo hadda Puntland isu sharaxay madaxweyne ku-xigeen inuu marar badan ku celceliyay aniga baa shirka qaban kara ilaa uu ka dhacay dagaalkii dadka qaarkood waxay yiraahdaan muxuu Binde uga aaminsan yahay arrimaha dhacaya haddii ay yihiin shirki haddii uu yahay waxyaalaha dhacay waxaa tiri ilaa uu dhulbahanta iskaga yimaado ama qaatumo isku timaado oo aan wareejiyo adigu haddaad tahay madaxweynihii maxaad ugu baaqi lahayd marka dadka dhulbahanta ah waa su-aal wanaagsan weeye aad iyo aad baad umahadsan tahay waxaan ugu baaqayaa dhulbahante magaca dhulbahante la yidhaahdaa waa qaali taariikh buu leeyahay soo jireena oo Soomaali oo dhan wada og tahay ma aha in wax la marmariyo ma aha in marti loo noqdo Puntland iyo Somaliland ma aha in marti loo noqdo waa in la isku filaado waa in la isku tashado waa in wixii la sameeyay laga mira dhaliyo sidaasaan ugu baaqayaa magaca qaaliga minaan meelaha lala gelin matalan haddeerto Minnesota la yidhi baa haddeerto shir ka dhici doonaa haddii alla idmo ayuu ka dhici doonaa waana niman malaha isbiirsaday oo G11 hadda aan ka warramayay weeye shir ka dhici kara meel kale oo ay wax ka soo bixi karaan ma jiro oo aan gudaha ahayn khaatumo waa gudaha arrinta iyada ah baan aad iyo aad u adkaynayaa in gudaha la isugu yimaado shirkiina la fasaxo anigu ilaa intaa haddaan aamusnaa iyo haddii aan aamusnayn dan khaatumo ayaan u aamusnaa haddaan aamusnahay waayo haddaan hadlo oo runta sheego waxa ka iman kara waan qiyaasayaa waana garanayaa haddii aan hadlayna meediyaha ayaa laga dhegaystay dhowr goor baa laga dhegaystay marka waxa weeye shirka hal la isugu yimaado gudaha waa in lagu tashadaa maamulku waa inuu daadihiyaa shirka waa in halkaa uu ka soo baxaa go-aan dhulbahante iyo aaya ka talinta dhulbahante waa inay ka soo baxdaa shir dibad lagu qabtay ama dayuurad lala raacay waxba u keeni maayo dhulbahante isimadana sidaasaanu isku ognahay majorityna xidhiidh baanu leenahay sidaasaanu isku ognahay baaqaygu kaa weeye nin mas-uul ahaa oo meel kale aaday oo khaatumo ka tegayna ka mid ma aha khaatumo waa arrinta Axmed Karaash oo aad weydiinaysid
xil baa lagu ogaa madaxweyne u ahaa meertada inkastaanu lahayn haddii uu tegey oo meel kale la aaday khaatumo waxa weeye annagu waa kasoo horkajeednaa waxay kordhinaysana ma jirto waana qalad arrintaas xilkii naloo dhiibay haddii aanu ka aamusnayn ama aamusnaan la yidhi waa maxaad uga aamustay arrimaha noocaasa waxaan uga aamusay waxa weeye dan dhulbahante inta aan ka aamusnaa oo aan uga tegi waayeyna beenkuu sheegi maaye G11 baa ugu horeysa sababtu waxa weeye formulada ku shaqaynayaan waxa weeye waa kajar oo ku dar kajar oo ku dar waa in aad macnaheeda loo fahmaa kajar oo ku dar weeye ujeedada markii horeba ay lahaayeen G11 anigu waxaan ku ogaa waagii hore maqli jiray G6 anigu se waxaan arkay G3 hadda waxaaba la yidhaahdaa oo lagu dacaadeeyaa jiida badata ayaa baa lagu dacaadeeyaa marka waxa weeye inta aan ka aamusnaa inaan wax sheego waxa ugu badnaa oo ilaalinaya G11 bay ahayd waayo kajar oo ku dar macnaheedu ayay ku shaqaynayaan taana yeeli mayno waa in la isu yimaadaa sidii hore waa in magaranaysaa la tashadaa waa in xilka meel lagu ogaadaa waa in magaca ceebta la marmariyey dhulbahante ama khaatumo waa in laga soo noqdaa waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo dhowaan waxaa ka dhacay dagaal deegaanada Nugaasha maraan adigu aan kaa waraystayna waad ka digtay in la kala joojiyo ciidamadaas laakiin dagaalkii intuu dhacay ama xabaddu ay dhacday kama aadan hadlin madaxweyne Indhasheel waxa uu u sheegay dadka deegaanka Qaatumo inuu xiriir kula soo sameeyay balse aad diiday inaad u raacdid dhinaca Taleex aragtida dagaalkaas iyo xiriirka uu kula soo sameeyay maxaad wax nooga sheegi kartaa iyo dagaalkii meesha ka dhacay waad la socotaa weriye markii ugu horeysay formulada lagu shaqaynayay waxay ahayd in ciidamadii loo diiday oo hadda aan ka sheekeeyey oo furinta ku jiray oo laga soo saaray oo ciidamadii khaatumo ahaa oo qabiil walba lahaa sida loo baabi'iyey waan kuu sheegay waxaan kaloo kuu sheegay in ciidamo beeleed laga dhigay waxaan kuu sheegay arrintaa inay ka dameeyeen G11 sababtu waxa weeye xoreyn laasacaanood ma ayan doonayn haddana dooni mayaan formulada ay ku shaqeeyaan iyo weyga ay ku shaqeeyaanna waxa weeye kajar oo ku dar waad la socotaa boocama inay isugu yimaadeen ciidamo laga keenay ciidamo beeleeda oo laga keenay hawd kuwa buuhoodle ka yimi iyo kuwa ka yimi saaxdheer ciidamadii qolada reer nugaaleedka ama ugaariyahankuna inay ka yimaadeen meesha la yidhaahdo Taleex in boocama laysugu yimi in ilaahay nagu guuleeyey odayaasha xasan ugaas iyo isimka ugaas cabdullaahi iyo anigu inaanu kala celinno oo aanu ka dhigno horta bal wixii kaleba ha joogeene dhulbahante islaaya inaanay jirin sababtu waxa weeye ujeedada meesha laga rabay waxay ahayd laba ciidan oo khaatumo ah ama dhulbahanta ah oo weliba hawd iyo nugaala inay isdilaan markay isdilaanna la kala tago oo aan dib dambe dhulbahanta isugu soo noqon ujeedada la watay taasay ahayd arrintaa iyada ah waa haddaan kugu dheereeyo raalli ka ah si fiican baan u macnaynayaa arrintaa iyada ah ilaahay waa nagu guulayay dhulbahanta inaanu islayn aanu labadii ciidan kala celinno naanaystii nagu dhacday waxay ahayd ama abaalgudkayagii wuxuu ahaa haddaanu nahay reer buucamo isku duuban isim madaxweyne odayaal waxgarad qoladii hawd ka timi waxay yidhaahdeen oo ujeeddada lahayd waxay yidhaahdeen arrintaa iyada ah waa nalagu dhabar jebiyey oo reer buucame waa nagu dhabar jebiyey annana dhulbahantaanu kala badbaadinay taariikhdaa ka markhaantiyoo qoraysa iyo wixii soo dhacda ahaa tan dambena waxa weeye waa lasoo maamulay iyadana sidii tii hore loo soo maamulay oo dibadda looga soo maamulay ayaa looga soo maamulay wuu ila soo hadlay ninka la yidhaahdo Indhasheel waxaan rabaa buu yidhi inaan kuu imaado toos baan ugu jawaabo waxaan ciidamo ma wadataa
wuxuu yeen haa waxaan idinka imow ciidamada anigana ii kaalay ama inagaa tegayna ama anaa tegaya taleex baan tegayaa arrintaana anaa soo dhammaynaya hawsha iyada ah laysdili maayo laba ciidan oo khaatumaa ama dhulbaantaa iska hortegi mayaan wuu diiday arrintaa waa igu diida wuxuu yeen ka iman maayo ciidamada dee waayo haddaad meesha aad aadayso aad ku socoto haddaba aad aniga hay soo marin adoo duulaan ku ah dhulbahante meel uu leeyahay iyo ciidan dhulbahante oo kale ha isoo marin sidaasay arrintu u dhacday haddii laga been sheegayo waa meesheeda xaqiiqdu sidaa weeye wixii ka dhacayna waa la og yahay waa laba arrimood oo kala jaada arrintaa iyada ah iyo dagaalka ay sababtay iyo wixii taleex ka dhacay waxa weeye wax kala jaada wixii taleex ka dhacay waxa weeye waa arrin inagu haddeerto aynan garan karin oo hoos ahaana weeye nin uun baa gubay gurigiisii uu lahaa iyo dadkiisii gubay waanay u taallaa laakiin bolisiga khaatuma ay ku dhaqanto waa kaa hore oo aan kaaga sheekeeyey noocaa hore weeye sidaasayna u dhacday arrinta taleex waxa weeye waa nin gurigiisii gubay iyo dadkiisii isagayna u taallaa labada arrimoodna iskuma khaldanee waa sidaa aad iyo aad baanu uga xunnahay waxaanu doonaynay inaanu magaranaysaa aad laga hadlo laakiin markii hadalkii lagu dheereeyey dad baa hadalka jecele waxaana xaqiiqda waa la ogyahay shir dhulbahante un baad ka sheegi doontaa haddana arrinta waxa iga keenay waxa weeye dee matag meelaad doonaysa kuguma simee adaa isu-aalay arrintuna sidaa weeye sidaasay u dhacday labada arrimoodna waa kala jaad waa sida okay su-aasha ugu dambaysa oon jeclahay inaan ku weydiiyo ama aad kusoo celcelisay waxa weeye in ayan G11 ayan doonayn inay degaanka ama dhulka ay xoreyso adigu waxaa kamid ahay dadkii madaxweynayaasha kamid ahaa sidaan warkahaynana waad u diyaar garowday inaad garanaysaa Somaliland ama la dagaalantid ama aad dagaal gashid hadda G11 waxay ku qabanaysaa shir gobolkan Minnesota ma kula tahay maamul ay ka sameeyaan dibadda inuu ka hirgeli karo wadanka ama uu xornimo uu ka dhalin karo degaanka maya Mr. Wariye arrinta ay nimankaas wadaan anigu waxaan u arkaa inay wax kama jiraan sababtu waxa weeye maamulku wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood buu ka kooban yahay maamulka khaatumo waxa weeye golaha madaxtooyada ama golaha xukuumadda golaha sare ee dhaqanka iyo G11 ay oo nimanka iyaga waqtigooda uu dhamaaday maamulka qudhiisa xilkiisii wuu dhamaaday iyo waqtigiisii waad soo ogtahay marka sharciyan la eego markii dawladi meel ay ka dhisan tahay oo waqtigeedu dhamaado dawladdaasi waa inay dawlad kale ay ku wareejisaa xilka ee aanay cidlo uga tegin sidaasaan ku sii hayaa anigu iyo kabinetku sidaasaanu ku sii haynaa xilka naga dhamaa G11 ka dhamaa isimadu waad ogtahay oo dee ma dhacaan golaha sare ee dhaqanka ma ay dhacaan dadkana iyaga u madaxa waxa dhaca waxa weeye ninkii la doortay baa dhaca isimadu ma dhacaan marka waxa weeye shir dibadda lagu qabtay waxba keeni maayo salaaxiyadna nimankaas uma laha G11 inay qabtaan shir waxa weeye khilaaf xun iyo kala tag horle ayuu kordhinayaa hebel baanu erinay hebel waxaanu ku shiraynaa dibad baanu ku shiraynaa waxbaanu dhisaynaa waa burbur iyo khilaaf horle oo kuwii hore ka xun shirkiisaan kuu sheegay aniga oo sii haya mooye dadka xilku waa ka dhamaaday iyo kabinetkayga waxa la doonayaa mar labaad in la isu yimaado oo gudaha lagu qabto congress dhulbahante iyo shir caama oo dhulbahante halkaana lagu dhiso maamul rasmiya lagu dhiso haddii anaga nala doortana ahlan wa sahlan haddaan nala doonana xilka aanu si rasmiya ugu wareejino wax dibad lagu soo madhoodheeyey ama wax dibad laga maamulo waa waxa hadda dhulbahante uusan u lahayn itijaah iskagana hor yimi xabaddana iskala hor yimi waad garan kartaa wariyow ama waad qiyaasi kartaan dadkiina dibadda jooga
ciidamada aan loo ogolayn inay wax xoreeyaan oo dalkii maqnaa xoreeyaan oo laasacaanood xoreeyaan oo xudun xoreeyaan oo dalka kale oo faraha badan ilaa 150 kilomitir aynu leenahay oo labada ka baxsan baa la haystaa oo lagu jiraa dadkii ciidamadii la doonayay inta inay xoreeyaan waxa laga doortay in la iska hor keeno oo ay islaayaan si maamulka khaatumo daciifiye uu u sii baaba'o magacuna uu u baaba'o oo uusan u jirin waxaa la mid ah shirarka meelaha laga madhoodhaynayo marba diyaarad la raacayo meeshii qori laga siin lahaa haddii shilin la helo ama rasaas laga siin lahaa ama raashin iyo shidaal laga siin lahaa caloosha ah ciidamada dagaalama iyo gaadiidka ay ku dagaalamaan diyaarada in lala raaco oo meel heblo la isugu tago oo shir lagu qabto oo waxaan loo dhammayn oo golihii dhaqanka ee sare uusan ku jirin maamulkuna uusan ku jirin shacabka reer khaatumo oo shiikh iyo shariif iyo waxgarad iyo caaqil iyo isim iyo indheergaradba aan lagala tashan in dhowr wiil ay meel la galaan ma garanaysaa shir oo waxaasaanu keennay waa burbur hor leh ma dhacayso ma shaqaynayso waa burbur hor leh waa isku dir hor leh waa in la isugu yimaadaa gudaha oo lagu tashadaa shirkuna uu ka dhacaa gudaha iyo wixii la dooranayo sidaa weeye wax allaale wax ka soconaya nimankaa ma jiraan sharciyana salaaxiyad ma laha way dhaceen July baa ugu dambeysay 13keedii wax dame oo iyagu ay ku hadlaan oo aan tala ahayn oo laga dhageysanayaana ma jirto waa sida aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay madaxweyne Binde oo aan qadka telefoonka kula xiriirnay insha Allah bal mustaqbalkana wixii soo kordhaa waanu ka wada hadli doonaa Kogashiisa kuma ledo waligina kulmare udcada wuxuu yidhi in hadduu gardana yahay kogashiisa kuma ledo waligina kulmare يسينا درويش كونا قريب كما عبصودان ما قال قلني ما ديوت الكل أبا وكالكوها يسينا درويش كونا قريب كما عبصودان ما قال قلني ما ديوت الكل أبا وكالكوها Bani ma yutirira Gay la shan Kop kasto la chogay Kukuban tulbilaha Bani ma yutirira Gay la shan Kop kasto la chogay Kukuban tulbilaha وهسي لما قاعد اوغو رياضي اللحق متان محمود عثمان متان يحكي هلا سيغارها سادو علي ورسنه وميوزيكي مختار أورومو ستوديو إلى نور عدل سو سارستي سو ميوزيك لجن
wuxuu yidhi guutadii darwiishka xornimadii la gaadhiyo guudka calanka noo suray ogow guud caddaa wuxuu yidhi guutadii darwiishka xornimadii la gaadhiyo guudka calanka noo suray daraawiishta gaydhani qalad garab ma siiyaan moogola gumaysiga gardaarada ma qaata daraawiishta gaydhani qalad garab ma siiyaan moogola gumaysiga gardaarada ma qaata gobanima yutirira gayigayilaashaan goob kastoo la joogay ku guban dulmi lahaa gobanima yutirira gayigayilaashaan goob kastoo la joogay ku guban dulmi lahaa darani gulmale gurigiisa kuma ledo marna godobka kuma tego ogow guud caddaa wuxuu yidhi ninkar darani gulmale gurigiisa kuma ledo marna godobka kuma tego geesiyada darwiishkuna nacab uma gargaaraan ma ogola gabood fare dadka geesu kala gura geesiyada darwiishkuna nacab uma gargaaraan ma ogola gabood fare dadka geesu kala gura gobanima yutirira gayigayilaashaan goob kastoo la joogay ku guban dulmi lahaa gobanima yutirira